الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta joogan guud iyo dibadba hambalyeena runtii iyo bogaadin baan u dirayaa anigoo ugu hambalyeynaya sanad guuradii 26aad maaragtay ku beegan 18 May marka hambalyeena u dirayaa walaalayaal waxa inagu soo foolay 18 May maalintii qaranimada Soomaaliland oo ay tahay runtii inaan xusno isla markaana walaalayaal waxa jirta petition loogu talagalay in loo gudbiyo baarlamaanka Ingiriiska runtii marka walaalayaal waxa loo baahan yahay in qof kasta muwaadin meel kasta ay joogaan ay ka qayb qaataan petitionka isaga ah oo runtii ku la mid ah halgan runtii aynu inagu galina hadaynu nahay reer Soomaaliland walaalayaal waxa jirta awooyaasheen sidaad ogtihiinba awooyaasheen waxay u dagaalameen xorriyadii gumaysiga waxayna ku bixiyeen naf iyo maalmaba maxaan dhahaayay aabayaasheena waxay u dagaalameen runtii la soo noqoshadii dib u soo noqoshadii xorriyadii inaga luntay 60kii maanta halgankii wali halkiiba ay tahay kasii wadno mas'uuliyad ayaa inaga saaran runtii hadaynu nahay shacabka reer Soomaaliland meel kasta joogaan marka maanta dadkana degan wadanka Ingiriiska runtii waxa loo baahan yahay runtii inay fursad aad iyo aad qaali ah haystaan marka waxa loo baahan yahay runtii maadaama ay soo socoto doorashada ugu soo wadanka Ingiriiska baarlamaanka soo socotay 8 June waxa runtii haysanaa fursad aad iyo aad qaali ah runtii kula gorgortano xildhibaanada wadankan uga soo baxaya runtii baarlamaanka runtii maadaama aynu nahay shacbi runtii runtii saameyn siyaasadeed oo xoog leh codkeena waa inaynu ku gorgortanaa oo aynu runtii u sheegnaa in ay markii ay runtii doorashada helaan ee la soo doorto in ay baarlamaanka geeyaan maxay dhahdaaye qadiyada iyo madaxbannaanida Soomaaliland walaal waxa jira petition runtii waxa jirta runtii banaanbax weyn oo la qabanayo 18 May marka waxay tahay inaan si fiican oo mugi miisaan ugu soo wada baxno petitionka runtii waxa laga helayaa dhammaan xarumaha iyo laamaha xisbiga kulmiye UK runtii marka waa inaynu si fiican uga qayb qaadanaa runtii marka petitionka isaga runtii laakiin xisbiga kulmiye oo qura kuma koobna laakiin waa mas'uuliyad saaran qof kasta muwaadina oo degan cariga Ingiriiska runtii inuu petitionka ka qayb galo marka walaalayaal haddii aad tahay muwaadin degan wadanka Ingiriiska meel kasta jihooyinkiisa kale ah north west south and east waxa ay tahay si mug iyo miisaan in aynu uga qayb qaadano runtii oo gacmaha isku wada qabsano oo petitionka isaga aynu saxeexno si aynu runtii ugu hiilino shacabka iyo midnimada qaranka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan aad iyo aad aynu sidii marka kadibna marka aynu helo ictiraaf caalami ah aad iyo aad u mahadsantihiin jazakallahu khayr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.